dalalka midowga Yurub oo joojiyay duulimaadyadii hawada Soomaaliya. Xafiiska dalalka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya ee xaruntiisu tahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegay in gabi ahaanba ay joojiyeen duulimaadyadii dhinaca cirka ee ay diyaaraduhu ku tagi jireen dalka Soomaaliya. Sidaasina waxaa lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska midowga Yurub u qaabilsan Soomaalida oo aanu nuqul ka mid ah helnay. waxaana lagu sheegay inay la xidhiidho war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda duulimaadada u qaabilsan dalka Kenya 7 bishii aynu soo dhaafnay oo ay ku soo rogtay in ay xakameyn cusub ku samayn doonto shirkadaha diyaaradaha, gaar ahaana in la xidho ama loog la saari doono diyaaradaha caalami ah iyo kuwa maxalli ah. taasina waxay saameyn ku yeelatay diyaaradaha ay isticmaalaan midowga Yurub xafiiskooda u qaabilsan Soomaaliya oo ay diyaaradahoodu xarun u tahay magaalada Nairobi sababo la xidhiidha dhinaca amniga. sidoo kale waxa ay wararku sheegayaan in joojinta diyaaradaha ee midowga Yurub ay la xidhiidho in aanay ku qanacsanayn qorshaha dawladda federaalka ku doonayso inay kula wareegto hawadii Soomaalida iyadoo aan wax heshiis ah kala gaarin Somaliland. sidaas daraadeedna waxa ay wararku intaasi ku darayaan in midowga Yurub joojintani oo ka bilaamaysa 13 bishii ina dhaaftay ee June oo aanay diyaaradahoodu u duuli doonin dalka Soomaaliya ilaa amar dambe ayay yiraahdeen.